السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مeel baad joogtaan soo dhawaada. Waxaan leeyahay waqti qurux badan iyo maalin qurux badan iyo jawi qurux badan. Maanta u jeedaan ku soo dhawaada shaac cadaysa. Inkastoo haafa cabay laakiin waa dhib ma laha. Waxaan leeyahay maanta studio ma la joogo. Xaafada la iska joogaa ma garat. Dhalaa la iska daawanaya. Casariyi waaye. Waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabteeda meel baad joogtaan. waayahan jawi qurux badan lama qaadan waa inay imaado muuqaal la inii soo duwa waa baxaa laakiin maanta jawi qurux badan in la qaadanaya insha Allah bidmilaahi karin warkiina iyo waayihiina kale in waa fiicanay sax ninkana waa fiicantiin baraha bulshada ayaamahan way iska qasan tahay oo way iska dhex wareegaysaa waxa iska badan maaweelada iska badan iyo waxa iska badan problemka iska badan intaan ayaamahan waa u jeedaa YouTube-kayga dad badan u jeedaa oo qaybtood kacsan tahay hadda video hadda ugu dambeeyay xal wax ma soo dhigin YouTube-kayga sax laakiin video ugu dambeeyay gabadha 36 jirka walaal social media horta waayaha tan aad ugu qasan yahay wuxuu aad ugu qasan waxay tahay social media waxa ku soo badanayo dumarkii raggi iyo dumarkii sanadkan maanta waxa xishoonaya raggi ayaa xishoonaya because dumarkii waxa iska badan yihiin dhibaatadoodii abaatay qajacdooda abaatay caanimaysa ku raadinayaan gabar walba caanima raba gabar walba fanaanima raba gabar walba jilaaya raba wallahi ani waayaha tan marmar baa xasid inta iska fikir xasid hiba khadka ma iskaga baxdaa YouTube dhan ba ma iska amaan ma iska siisaa because waxa arkaa fool xumada socota arkaa barnaamijka maanta aan ka hadlay waxa barnaamij oo soo duubay ninka la dhaho maxaa la jiray dhac boqorka gambiska ma lahay boqorka gambiska barnaamij soo duubay jirta oo xalay aad iyo aad uga xumaaday barnaamijkaas waxa waaye Asad Xaajiyo ayay waxay ka soo qaateen tusaale ayay ka soo qaateen Asad Xaajiyo isagii xaaskiisa ama gabadh uu qabaan dhihi karnaa tusaalaha ka soo qaateen waxay tahay dad badan waxa arkay commentiga hada aan arkay Asad Xaajiyo xal video soo duubay hada waa arkay Asad Xaajiyo hadii aniga hiba ahaan anoo aan difaacay laakiin aniga hiban ahaana waxaan aaminsanahay boqolaal agahooda qaba inuu ka fiican yahay because qofka bila aadanka maqaadirta Ilaahay oo mid xaq Ilaahay ka timaada wax wala oo kugu dhacaba إله وين واحد كأياكو كان لحد الحال هذا كهدو دمسترين الحمد هدو صار دمسترين الحمد كوان بأنت هاي سن أسد حاجيونا ما تبغلال نن أو لوجو هذا قبو محي هذا وكفي عين هاي وشقي صنايا وحا يستا فاميلي جحل وحا يستا ولاله جحل وحا يستا صاحب جحل وحا يستا ددوينه iyo fanis familkiisa oo kala marka leeyahay fanis familkiina oo kala sasta aniga hiba ahaan dadkaan idaawanaya ininka wax aan ku ahay ininka hadaan ininka in wax iga dhigin aniga wax ma noqon lahaa waa may hadeen ininka hiba idin ayni buubuun lahayn aniga wax noqon lahaa maya marka faniska loo jeedo waa familkaaga mar walba faniska aad arkaysid waa familkaaga sax iyaguna familkooda waa kala waaye Asad Xaajiyo waxa naga kulaaday hadal uu dhahay waxay soo qaateen maxaa la dhahay gaarigiisa soo qaateen hadana taarkad waxay ka dhigteen sawirkiisii hadana taarkad waxay ka sii dhigteen magaciisii waxay dhahaysaa gabadha oo boqorka gambiska qabo waxay dhahaysaa Asad Xaajiyo kii sida jiiska ahaaya YouTube-kiisa ma la xirino ya war Asad Xaajiyo YouTube-kiisa hadii la xiray qof la aadan oo iimaan la waaye qofkii shalay dulmiga ka galay intuu u soo laabto wuxuu dhahay Asad Xaajiyo miyaha abo dulmiga shalay ka galay YouTube-kaaga waa kana idana raal intee buu maray 200 iyo hayaay buu maray YouTube-ka Asad Xaajiyo alxamdulillah shukr maantana 73,000 oo sii ordaya because 15 bari wuxuu ku soo celiyay 73,000 wuxuu leeyahay shacbiyadu leeyahay waaye shacabka u jeeda adiga kasban kara Asad Xaajiyo nasaga kasbaday Soomaalida saga kasbaday walaal aan jecelahay waaye walaal aan ku faano waaye Asad Xaajiyo waxaan leeyahay horta gabar maayo wixii xageeda kaaga imi aqli darahaysa iyo maan xumahaysa waaye aniga ahaan waliba aan xaq dumar ahaan u hadlayo soo raal waa ku leeyahay qofka bila aadanka
markuu dhibaato haysto iyo markuu soo dhibaato haysan isku mid ma markuu dhibaato haysto wax walba dhaanteeda uu qabtaa laakiin waxa aaminsanahay maanta maqaadirta Ilaahay astaxaajo inuu ku qanacsan yahay waliba inuu qanacsanaan iska dhaafay hatta inuu ku yahay maqsuud uu ku yahay macna aad ugu maxay ahaydeen uu qanacsan because wax xaq alla ka imaado daqiiqado gudahooda afkaaga lagu qaban karaa markaas maxay ahaydeen si alla sida Ilaahay ka dalbato lagu dhihi karaa qof walba xab iyo biyaha markuu ahaa waxa loo soo qoray wuxuu ku dhici doona wuxuu sameyn doona wuxuu noqon doona xab iyo biyo soo loogu talagalay marka maanta inaanu gurigeena jooga oo fasax meel aan aadin ama shaqo kale aan aadin istuudiyihiina aan ka gaari waayay ina gurigeena aan ku soo dhex duubo aniga asar waxa iga keenay wallahi hadalkii aan ka xumaaday ay dhahday gabar maayo hadalkii dhahday aniga kaliya ma ku xumaanin Soomaali weyn oo dhan ka xumaatay waana la difaacay waxaana la siiyay wixii iyada ay mudnayda la siiyay ma garatay laakiin waxaan dhihi doonaa hadduu ahaan lahaa qof intii maangaanimo sawirkiisa u soo qaatay sawirkiisa waxa ka sii raadisay bariis sawirka astaxaajiyo ka sii raadisay marka waxaan leeyahay boqorka gambiska iyo xaaskiisa afkiina marnaba yuuso oo baran waxyaabo aad macni qof kale qalbigiisa aad wax ku yeeshaan mar walba jeclaada bulshada inayna qof bila aadana ay qalbigiisa ayna naaqusin ama qalbigiisa inayna qof bila aadana ay wax u geysanin waxa la dhahaa intaada ka filnaa la ka fiirso qof bila aadana markii aad maxay hadeen hadal ku dhahaysid dib uga fiirso qalbigaaga ma dhaawacmi doona sidee buu qalbigaagu noqon doona maxaa la dhahaa qofkaas sidee noqon doona qalbigiisu ma ku xumaan doona marka astaxaajiyo haduu qalbigiisa ku xumaado intuu soo fariisto ma dhii lahayn laakiin wuxuu inisiiyay talo iyo tusaale qof kale bila aadna oo qalbigiisu dilayhay maanta sida hadaa si dhii lahaydeen nusqaamu si noqon lahaa laakiin astaxaajiyo qalbigiisu ma dilma maxay hadeena waa wiil xab iyo biyo markuu ahaa Ilaahay wuxuu ugu talagalay ku dhacay kuna qanacsan maanta anigana sidoo kale wax wal oo anu dhacay maanta ama wax wal oo maxay hadeena ama sameeyna maanta in xaq fariisto aniga xab iyo biyo ano ay qadarto wax walba qadar Ilaahay waaye waxaan dhihi lahaa markaa Soomaalida aan sheegaya dhamaan si u dhan yihiinba Soomaalida qofka bilaadanka intuu soo hadalkiisa afkaas intuu soo hadalka soo saarin waa inuu ka fikiraa muddo 10 jeer ka hor qofkaas waxa saas ma dhici karaa qofkaas ma ku xumaan doona qofkaas see noqon karaa waa inaad ka fikirtaan oo fikrad dib iskugu yeeshaan maxaa la dhahay oo wax yar hataa in aad maxay hadeen isqiimeysaan laakiin Soomaalideena waxay ku been oo iska halaayaan wah ininku wax ay sameeyna iska halaysaan warniyow jaahilnimada iska dhaafa jaahilnimada iyo maangaabnimada iska dhaafa qof kasto bila aadana oo Ilaahay untay oo Quraan bartay oo Ilaahay ka baqaayo oo qowlka run bartay uu qof walba gadaal uu fikiraya qofkan waxa ma ku xumaan karaa aniga maanta hib ahaan qofka waxaan dhahay ma ku xumaan karaa marka hadda waxaan dhahayaa aniga qof aan dhaleecaynin ama aan caynin maxaa la wiilka boqorka gambiska wiil Soomaaliyeed waaye iyo gabadhu qabo wax walba intii farin ka fiirsada wadan waxa joogtaan xorriyad leh wax walba la iska dhigi karo oo ay isdhayn macnaheedu waa laga xumaana laakiin Soomaali hadii wadanka anaga joogno wax walba xumaanto waaye dib uga fiirsada wiil iyo xaaskiisa waxaan leeyahay dhamaan asxaabteeda ku xiran hibo falaq official ku xiran waxaan leeyahay hadda waayahan ma ila dadaalaysan ila dad badan waxa arkaya dhaay hibo 17 kun ma dhaafisimiya 17 kun idinka ma dhaafisaan dhaafiyano waayahan waxaan dhaay muuqaalkan fadlan subscribe share like comment inta ba la soo dhaho niyo maxay hadeen dhaafiyano 17 kun dhaafiya sanadkii cusub bishii koowaad way dhaaftay hay 17 kun ma inay dhaafinin أنا سنة كعصب بشي استحاد وحن سجايا إلى نفتة دويداي إنها بقول كنا سبسكرايب آخر سجايا نيو مركا وحن الله يسوع مالويني هل فر نقضة ولا وفر هالنقلنا هل فر نقضة قفل بقلب وناكسن
hal far inay Soomaali weyn tahay way uu garanayaa laakiin qofkii laqadaba ku jirto uu garanayo Soomaali weyn markii la dhahayo looma dhahayo qabiil iyo bahalkii looma dhahayo ee Soomaali weyn magaca afka Soomaaliyeed inta ku hadasha oo diinta islaamka taqaana ama ummadda Nabi Maxamed ayaa Soomaali weyn la dhahayaa Soomaali waa hal far ilaaha oo nood uuntay kala gurid ma jirto meel waxa loo soo socdaa aan la kala gureyn dhamaan meel baa joogta waxaan leeyahay tiin ku xiran Hibo official channel waxaan leeyahay hadda gurigeyga iyo maanta shaahaygaba ana igu soo dhaweynaya sidaas iyo nabadgeliyo